الله يحرقها. waxaan leeyahay qofka ka soo jeeda deegaanadan ka soo jeedo ee halkan iga daawanaya maanta dawaad aragtaa dibiga gowrac suuxa ku quustay baa leeyahay salaadiinta baalkoodii ogeeyay biri toolani ka fasisiyo adeer hadhow toole adigu hanoo soo ooyi baan anigu leenahay oo aan SSB gaarsiinaya meel kastay joogaan ciimaamadeena iyo odayaasheena yaan madaxa laga tumanin waxaan oo afar cisho hadhay inuu 7 sano ee uu arjuuqday caga jugleynta umada ku hayay in afartii cisho waa xafladii u dambeysay xidhay noqon doontaa idamka alle daqiiqada ka dambeeya xilliga la bireeyo midada la mariyo ayuu si xarbad lowdaa markaasuu dhiigga iyo ciidda ku sii galgashaa muusow kaasaa taha maalinta dheeradayda saa u qaniinaa anigu saa u qaniinaayo aan sabtalo iskaba go maanta say iska goyn maaye Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaan ku soo saarayaa waxaana ugu tagay taliye inaga wada shaqayn doona afar casho ka bacdi waxa soo galay ciidamo kala duwan oo gabi ahaanba munaasabadaasi joojiyay haddaba munaasabadan iyo ujeedka loo joojiyay waxa ka hadlay mas'uuliyiinka kala socday xisbiga mucaaradka ee wadani iyo urur siyaasadeedka ka shirka dawladdiisu waxay ahayd iyo kulankani taageero loo muujinayay go'aankii salaadiinta ay ku gaareen deegaanka Ceelafweyn gobolka Sanaag iyo runtii iska rabtaag loogu muujinayay go'doonta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee afarta casho u hadhay uu goodinayay dhaqanka iyo gudida beelaha habar jeclo uu goodinayay xabsi iyo ajrumid iyo xarig oo ahaa caga jugleyn tii ugu dambeysay isbarbartaagooda labada qodob ayuu ku saabsanaa kulankani waxaanu ahaa kulan muddo aan soo qorsheynaynay tacab badan uu ku baxay runtii sifo sharciyada aan u qabsanay aan wax xisbiga ku taxalluqin ee dad kamida bulshooyinka ugu waaweyn Jamhuuriyadda Soomaaliland beelaha ugu waaweyn ay ugu muujinayeen dhaqankooda iyo salaadiintooda caawana taageeradii aan burco ugu sameeynay ayaa albaabada loo laabay ciidamo ordaya lagu yiri nin taliye qeybeed booliska ah ee gobolka Togdheer oo malaynaysa qudhiisuu taliye ku yara xamaasadoobay waxa la sheegay waa tan de Soomaaliland madaxa ku dawaqdayo dadkii deegaana iyo qabiilooyin ay cudurkaasi weyn galay marka waxa ma taliyuhu inuu madaxweynaha la yara dawaqsanaa mala dhicitaankiisa iyo inuu madaxweynuhu sii socdo aan ka xunay waxa la taliye aday waxa ahay taliye qeybeed taliye habara wala ma ahayn taliye madaxweyne taageero waxana ma ahayn sida ka muuqatay de saasaka ficilkaaga ka muuqatay anigu kumadihi marka isagana nasiib darray runtii ku tahay oo cambaareenayna cid amar soo siisay ama maxamed ka hela soo siiyo ama kaga sareeyo saxana soo siiyo runtii saxana ugu tagay taliye inaga wada shaqayn doona afar casho ka bacdi waxa heedina shaqo si wanaagsan aad u gudato dhexdhexaada taliyaha ciidamo soo diray wuxuu yiri waa amar waa khasab oo in la joojiya inta meesha ka dhacday sidaasay ahayd waxaan dadkii u sheegay inay iska casheeyaan xafladina anagoo eegayna dhowrayna sida aan hore u sameyn jirnay la xajaclada iyo wada jirka ummadan iyo dadkan oo anagu isbanbaaninayna ayaan u joojinay marka runtii waa arrin nasiib darro baan leenahay laakiin waxaan u sheegaynaa in arrin la iskaga hadhi doonaan ahayn waayo de taageero dadka intaas waliba gurigiisii ka yimi ee waqti ku baxay saaka salaadii si aan markaa aanu banaanbaxa ka soo noqonay maalinta wadani u lahaa ayay maalintan taageeradiisa ay deegaanadani ay qabanayeen dhaqaale fara badan baa ku baxay oo 10 kun kor u dhaafaya xafladda qabashadeeda waxaasoo dhan la iskaga hadhi maayo uu khasaareeyay laakiin waxaan fariintiina way gudbi doontaa saxaafadda afka qabanaysa waxay ahayd xaflad dhaqameed lagu taageerayay salaadiinteedii oo suldaankayga anu salaadiinteedii boqor Cusmaan Maxamuud Buuro Suldaan Saciid Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen Nuur Cali Suldaan Maxamuud Guulad gudoomiye Food Cali Axmed Baladi dadkaygii dhaqanka iyo gudida ayaan ku taageereynay oo lagu taageeray si wasiiro hore ku jiray xildhibaano golaha wakiilada fadhiya ku jiray marka digniinna nama siin cid noo soo digtayna ma jirin cidna la hadashayna ma jirin anigoo hadlaya qofkii koobaad hadlaya markii quraanka la akhriyay ee la igu soo dhaweeyay shirka faafaahin ka bixinayo ayuu ba askari ciida ka badan oo taliye ay nagu soo muuqaaladina saxaafadda wada dawlis digniinna lama siin 100 taageerana la qabtaa imiga mid ka socota hudheelka oo taageera wax lagu sameeyay jir marka waxa weeyaan de waxa taayada loo ugaarsaday anu garamayna waa tii salaadiinta uu de lagu ugaarsaday bay salaadiinta wixii ku taxalluqay gudideedana ay ugaarsiga tahay waxaan leeyahay qofka ka soo jeeda deegaanadan ka soo